مسؤوليinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu daafureen seminar muddo 4 cisho u socon doona maamulayaasha dugsiyada iyo waliba sidoo kale kormeerayaasha munaasabada lagu daafuray seminarka ayaa waxa uu horeyntiiba ka hadlay isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Sheekh Cismaan Ciya iyo waliba sidoo kale ku xigeenkiisa aadan waxayna yiraahdeen taako ay bisha 24 November 2019 halkan waxa isugu yimiday oo ujeedkeenu uu yahay maamulayaasha iyo kormeerayaasha degmada Boorama inaynu halkan ka furno saaka ku saabsan maareynta iyo maamulka dugsiyada iyo dabagalkooda yani maamulayaasha oo ka qayb galayaan maamulayaasha iyo kormeerayaasha labaduba labaduna saan wada ognahay kormeeruhuna maamulo kama maarmo maamuluhuna kormeerama kama maarmo xaqiiqatan waxaan isleeyahay waa aad baa loogu baahnaa waxaan rajaynayaa insha Allah isbedel badanna inay noo keeni doonaan haday kormeerka tahay iyo haday maamulaha tahayba waana loo baahnaa hadiya jeerna maxay ahayday walaashan wax subuunha sugina intiina badani ee hore uga soo qayb gali jirtay waa wixii aad arki jirteen laakiin waa maxay ahayday waa isbaraarujin oo dib la isku wacyi gelinaya kulankan oo daaran afar ujeedo ma loogu tala galay kulankan waxa weeyaan kow inaynu hogaanka ama hogaamiyaha qaabkeeba iskuulka loo hogaaminaya ama waxa la raado school leadershipki waxa kale oo yidna miimay maamulkii oo kale ama managementkii oo maamulkii oo dhamaanteen naga wada dhaxaysa ma ahaadaan kormeerka ama dugsiyada ahaadaan waxa yidna halkan xataa ku jirta wax la raado in curriculum management ama manhajka iyo macalinka maamulaha laftigiisa looga baahan yahay inuu de macalinku halku manhajka maraya qaabku wax ugu dhigaya iyo dabagalka dugsiyada supervisionkiya marka halka waxaynu maanta ku wada fadhinaa waa maamulayaashii iyo kormeerkii iyo wasaaradii waxaynu gacanta ku haynaa ubadkii mustaqbalka dalkan waxa oo laynagu aaminay waxay nooga baahan tahay inaan daacadnimo markaa ugu shaqeyno waxay nooga baahan tahay inaynu tamarteena gelino oo inaynu hakran sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi iyo waliba sidoo kale xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duudu isla markaana soo dhaweeyay seminarkani isla markaana sheegay in kor loo qaado tayada waxbarashada waxayna tilmaameen kulamada noocan oo kale waxay kor u qaadayaan in ay baraarujinayaan in wixii naga qabiyoobay inaynu dhameystirano haddii team work lagu wada shaqeeyaan runtii wuxuu noqonaysaa in halkii la naga rabay aynu soo gaarno haddii Ilaahay dhaahdo afarta maalmoodna waxay noqon doontaa kulay inaad rika dib u xasuusin inay noqoto oo wixii la soo qabsoomay even xataa waxa soo rees gareenaysaan in caqabadaha idin hor taagan Professor Jeke iyo ku xigeenkiisa iyo teamka la shaqeynaya uga mahadnaqaynaa runtii hadaan nahay maamulka gobolka waxa noo sharaf maanta inaan idin kala soo qayb galno barnaamijkan ee loo qabanayo maamulka dugsiyada iyo kormeerayaasha runtii maanta waxbarasho cusub lama furayo waa la xasuusinayaa in badan baa quraanka kariimka markaad akhriyo waxaad arkaysaa wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin yani waxa weeye bar lama oran fahansii lama oran waxa la xasuusi waan ku faraxsanahay anigoo ka wakiila barasaabka gobolka Awdal waa Shucayb Maxamed kan Shucayb biga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.